wardegdeg daawadayaal waqtiga idin tahay buucan ayaan leeyahay subax wanaagsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay waxay la wareegeen degmada Sablaale iyo tuulooyin ku dhow oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan oo lagu magac daray howlgalka Badar ay ciidamadu saaka waxay kula wareegeen tuulooyin hoostiga degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gudaha u galay fariisimihii nabadiidku ay ku lahaayeen degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidamadu ay ku guuleysteen inay qaarijiyaan saakay 28 dhagar qabo oo ka tirsan argixisada al-shabaab waxayna sidoo kale ciidanku gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanado military oo ka caray nabadiidka howlgaladani waxa ay barbar socdaan howlgalo shalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose ciidanku kula wareegeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi waxayna ciidanku shalay gacanta ku dhigeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka oo saakay bartilmaameedsaday tuulooyin hoostiga degmada Sablaale ayaa waxay ku guuleysteen inay gabi ahaanba degmadaasi iyo deegaanada ku dhow ee gacanta ku dhigaan sidoo kale Kutuwaari ay ciidanku howlgalada ay ka sameeyeen waxayna ku guuleysteen ciidanku deegaanadaasi inay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab howlgaladan oo ah kuwa aad u weyn ciidanku waxay sidoo kale ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan saanado military oo ay nabadiidku iskaga carareen mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo saaka hore xiriir la sameeyay ayaa inuu xaqiijiyay in Shabeellaha Hoose ay ka dhaceen howlgaladii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab howlgalkan oo lagu magac daray howlgalka Badar ay ciidamadu waxa ay ka wadaan guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana haatan soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab xilligan oo subaxa wararkeenu ku helino gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wixii sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku duuleen goobo badan oo ay ku dhuumaaleysanayaan argixisada al-shabaab degmada Sablaale iyo tuulooyin ku dhow ay sidoo kale ciidamadu waxa ay ka geysteen howlgallo culus iyadoo halkaasi ay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab howlgalkan waxa loogu magac daray howlgalka Badar waxaan iclaamiyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo haatan ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wada abaabuladii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab wuxuuna taliyuhu haatan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka wada gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan oo ah howlgal si weyn ay si baaxadda u weyn ay ciidamadu sidoo kale waxa ay qarxiyeen tiro miinooyin ayagoo ku guuleysteen ciidamadu deegaanada ay gaaraan ee ka saaraan miinooyinkaasi saraakiisha ayaa inuu xaqiijin haatan ciidamadu ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ee ka wadaan guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidanku sidoo kale ay gacanta ku dhigeen tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim ayaa waxa uu xusay in la bilaabi doono howlgalkii ugu weynaa haddana uu ka bilowday gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkaas oo lagu magac daray howlgalka Badar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi inay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka oo haatan ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan deegaano aan haatan magacyadooda carbaabin sababo ciidan awadood ayaa waxa uu inuu xaqiijiyay in ciidanku ay saaki ku dhaqaaqeen goobo badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo muddo 12 sano ah ay ka arrimi jireen argagixisada ama qawaarij al-shabaab taliyaha ayaa wuxuu inoo sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saaki ku waabaristeen degmada Sablaale iyo Kutuwaari halkaas oo muddo 12 sano ay gacanta ku hayeen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab deegaanka Mubaarak ayaa sidoo kale ciidamada howlgallo ay ka wadaan oo shalay gacanta ku dhigeen waxayna sidoo kale ciidamadu ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab gobolka Shabeellaha Hoose waxa shalay gaaray taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu halkaasi uu kala kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga taliyaha ayaa sidoo kale iclaamiyay 2 maalin ka hor duulaan lagu magac daray dagaalka Badar oo ay qaadi doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed turbadiiba ciidanku waxa ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka bilaabeen deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa haatan waxa ay ka wadaan deegaanada dhaca dhulka xeebta waxa saakay wararka inuu ka helino degmooyinka Gandarshe Jirib Marka ilaa dhanaane ay sheegayaan in ciidanku guud ahaanba halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ee al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijin haatan ciidanku ay wadaan abaabuladii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab guud ahaan gobolada dalka si xawli ah ay howlgalladaas uga soconayaan Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxa ka soconaya howlgalladii ugu xoogganaa oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wararka
aynu haatan ka helayno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan deegaanada Daarunimca ee Alkawthar ayaa waxay sheegayaan duqeymo xooggan halkaas ay ka dhaceen waxaana la bartilmaameedsaday goob ay ku dhuumaanaysanayeen kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. howlgalladani waxay ahaayeen kuwo xooggan ciidankuna waxay sidoo kale saakay dhowr goobood ay ka weerareen goobo ay isku urursan jireen kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. warka haatan aynu ka helayno deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidanka abaabuladii ugu xoogganaa halkaasi ay ka wadaan waxayna ciidanku sidoo kale gabi ahaanba hadda ay la wareegeen deegaano hor leh oo muddo dheer ay ka arrimin jireen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka soo laabtay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaasi kulamo kula soo qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyaha ayaa saraakiisha kula dardaarmay in ciidanku ay sii laba jibaaraan howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. wuxuuna taliyuhu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan bilaabi doonaan gulufyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. deegaanada Gandarshe Jilimarka ilaa dhanaane ay sidoo kale howlgalladu ciidanku ay ka wadaan waxayna ciidamadu ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. markana hadaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa ka soconaya howlgalladii ugu xoogganaa oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. warka aynu ka helayno tuulooyinka u dhaxeeya ama deegaano u dhaxeeya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan qaasatan deegaanka Muqliga Cali Wasaay iyo deegaanka lagu magacaabo Mabax ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay halkaasi ka wadaan abaabuladii ugu dambeeyay waxaana wararku halka haatan sheegayaan in degmooyinka Maxaas iyo Moqokori ay haatan si xawli uga soconayaan gulufyada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ku amray in sidoo ugu dhaqsiyaha badan ciidanku ay u qaadaan guluf ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu taliyuhu ku amray in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqaaqaan. ciidanka oo fulinaya amarka madaxweynaha ayaa haatan howlgalladii ugu cuslaa waxa ay ka bilaabeen gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan sidoo kale Jubbooyinka ayay goobaha ciidamadu howlgallada ay ka wadaan kamid ah. haddaanu ka xusno goobaha Jubbooyinka ciidamadu howlgallada ay ka wadaan waxaa kamid ah deegaanka lagu magacaabo Cabdalla Biroole iyo tuulooyin hoostaga ciidamada Jubbaland ee kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sameeyay howlgalladii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanadaasi waxa ay ka wadaan abaabuladii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si dardar looga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. deegaanka lagu magacaabo Baarsan Guuni ayaa sidoo kale ciidamadu howlgallada ay ka wadaan waxayna ciidamadu maalmihii ugu dambeeyay deegaankaasi ay ka wadeen dhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa amar degdeg ku bixiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta ku dhigaan deegaanada muhiimka ah oo ay muddada dheer ka arrimin jireen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. waxayna warku haata intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa ay ka wadaan gobolada dalka. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya gulufyada xooggan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaano muhiim ay kala wareegeen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. daawadayaal wixii ku soo kordha howlgallada xooggan ee ka soconaya gobolada dalka janalkeena ayaad ka daawan doontaan. fadlan hadduu muuqaalku ku soo gaaro meel dheer inoo gaarsii waad mahadsantihiin.